بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي أي رنتي أنا سجارة ما أنت فرح قلني سائرا إماذو جامعة ديدي عن مرنا معلن كاها مرنا عن مضح غيبات كدايركتور في الديبارتمنت عن كاها والشقاء آدي أروح بدن برجي هل كان كسعتي لكن بربركي أو وحبدن أو هوس ودقي أو بابي كلية دهن مركي أقول رسالة للسي معلمين تمدي أو وحكدك تي أيام كمدها غيبة آد مهم أو واجسي معنا بدن ذلك وفدي ولينا ذلك معنا بدن وفدي قاركون ومقيه وإلهي هذا ولي أنا لهين حرون لوطا وبر معلمين تا فرسمة أي هاي تكنولوجيا ugu cusbeeda marka bariga dalka jirteen halkan waa lagu isticmaali jiray kuleedan way yeeleen marka hoolkan laakiin ma oolin hoolkan ma oolin waa iga dambeeyay waa hambalyeynaya wasaaradda tacliinta runtii iyo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ee runtii ka shaqeeyay in ay suurto gasho in hoolkan aad iyo aad u quruxda badan lagu guuleystay in ay jaamacaddu yeelato iyo sidoo kale waxa aydan wax aad iyo aad muhiim u ah magaca loo bixiyay maxaan ku rahay Sharif Saalax oo runtii ahaa oday ku tilmaaman bahda tacliinta asaasadeedii iyo horumarinteedii waayii dambe inta kadib sidii dadkii iga horreeyay ugu tilmaameen waxaan aad iyo aad hambalyo u leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee mas'uuliyiinta ah maxaan ku rahay macadkan saddexdaas dufca ee isdabatii lay wax ku bartay iyo kuwii kale ee koorsooyinka gaagaaban ee ayaga sidoo kale yaryar wax ku bartay dhammaan waxaan leeyahay hambalyo waxaad barateen cilmi aad iyo aad loogu baahnay cilmi meesha uu had maanta ka soo burqanayahay Soomaaliya aanay horay u lahaan jirin cilmi maanta Soomaaliya ay ugu baahi badnayd maalinba meel ayaa ummadda ugu baahi badan tahay maanta meesha ummadda ugu baahi badnayd aqoonteedii iyo cilmigeedii waaye oo ah amnigii oo 1 iyo 2 iyo 3 sida loo sheegay iyo istiraatiijiyadii fogaan araggii berri mashaakilaadka marka mujtamaceena la tilmaamayo waxa kamid ah berri ma lihiin aan dhahnaa maanta amuureen ay ku kooban yihiin adduunyaduna waxa kala reebo oo kala hormariya waa berri shalay wixii dhacay wax ka barashay leeyihiin laakiin ma soo celi karno ma fix gareyn karno ma farsamayn karno ma hagaaji karno dib uma dhisi karno wixii shalay naga jabay ama naga dumay laakiin maxay nooga dumeen asbaabtii dumisay sidee looga baxay waxaasoo dhan oo wax ka barasho ay leeyihiin maanta oo aan joognana waxaan u joognaa wixii shalay naga halaabay sidii ay beri nooga halaabi lahayn mar kale iyo wixii shalay noo hagaagay sida aan beri u sii qurxi lahayn ee aan u sii horumari lahayn waxa muhiimadda ay tahay qofka bini aadamka ah saddexdaas qaybood in uu waqtigiisa inta u qaybiyo uu ka fakaro waayo macadkan iyo xarumaha kale ee lamidka ahna waa meelaha uu yaalla fikirka waa meelaha cilmi baarista haddii la sameeyo ay ka soo baxayso xogta iyo waxa dhabta ee loo baahan yahay war helaa tala hel ayaa la yiri Soomaalidu ku maamaada marka wixii dhacay iyo meeshay ka jabeen iyo meeshay ka hagaageen iyo biri sida loo sii markaad hesho ayaa talaabka bacdiyaad qaadi kartaa iyo dhaqdhaqaaqi kartaa iskama dhaqaaqi kartid marka hore adigoo aanan garanayn meesha aad u dhaqaaqayso iyo waxa aad ku dhaqaaqayso marka waxaan rabaa dhalinyaradaas mas'uuliyiinta ah ee ka qalin jibiyay macadka mar kale inaan dhaw hambalyo laakiin inaad ka qalin jibisay macnaheedu ma inaad shahaado qaadatay kaliya ma aha kartoonka yarka ah inaad qaadatay ma aha sida agaasimihii maad salaad halkan uga tilmaamay waa mas'uuliyadaad qaaday ammaanaad qaaday oo u baahan ilaalin iyo gudasho mas'uuliyaduna gudashay ka rabtaa ammaanaduna ilaalinay ka rabtaa marka ma aha kaliya shahaadaan qaatay oo aqoontii ma shalay aan joogay wax ku darsaday cilmigu waxba ma taro haddaanu camal keenaynin waxa يعني
micnaynta ugu sahlan ee ugu yara ugu gaaban marka la micnaynayo tacliinta waxaa la yidhaha macnaheedu wuxuu yahay ardaygii fasalkan soo galay markii uu soo gelayay markii uu ka baxayay inuu ka duwan yahay markii uu soo gelayay markii uu soo gelayay siduu ahaa wixii uu yaqiinay dareenkii uu qabay yacni hammigii ku jiray fahamkii uu qabay xirfaddii uu qabay wax walba waxbaa ku kordhay markuu fasalka ka sii baxayo uu bannaan ku sii baxayo marka tacliintu waa intaas qofka in ay beddesho waayo qofka inay beddesho ay u beddesho xaaladda uu joogay xaalad ka habboon xaalad ka ogaal badan xaalad ka xirfad badan inay u beddesho waayo haddii marka shahaadadii aad qaadatay laakiin wixii aad samayn jirtay iyo sidaad u dhaqmi jirtay un aad u dhaqanto oo aad meeshaadii iska joogto waa dee wakhti iyo xoog iyo xoolo khasaaray ayay noqonay arrinta istiraatiijiyadda barashadeeda aad iyo aaday muhiim u tahay maxaan leenahay maanta aan u leenahay soomaaliya 2060 say u ekaanay soomaaliya noocee ahaan rabnaa waa inaan riyoonnaa soomaha ondhana soomaaliya saasoo egaan rabnaa haye meeshaas may nooga dhammaatay maya noogama dhammaan meeshaas soomaaliyadaas quruxda badanee aan tilmaannay ee aan sawirnay inaan xaqiijinaana looga baahan yahay markaasaan dhigi karnaa riyadii rumowdayna adduunyadu waa waxa ay ku kala hormartay dadku waa inay riyoodaan oo ay biri qurxan maskaxdooda ku sawiraan kadibna birida qurxan sidii loo gaari lahay ay u istaagaan 2060 waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiis soomaaliya nooc kale ah dadkeenna dabaraa ku xiran qaarkii dabarkaasi aan annagu ku xirnay annagale soomaaliya haddaan nahay isku xirnay qaarkeenna dad inaan dhaqaaqna noo diidano cadow ah oo aan soomaali ahayn ay nagu xireen waxaa ka mid ah maanta dowladnimada aan haysanno ee aan ku dhaqmaynaa fikri ka timid dadaa meel inta fadhiistay yaa yidhi soomaaliya dowlad see ahay yaa loo dhisaa dadaa markaas tilmaamay oo qoray oo yidhi dowlad noocaas ha loo dhiso jihadaas ha la aadiye dalka dadkaasi runtii annaga waa wada joognay in badanoo ka mid ah soomaali ma ahayn ma dhahayno waa niyad xumaayeen iyo soomaaliya lugooye la rabeen laakiin waxaa ka maqneeday xanuunkeenna rabitaankeenna dareenkeenna himiladeenna riyadeenna aqoonteenna waayo aragnimadeenna waxaynu dhammaa ka maqnaa meesha mithaalka nool ee aan arki karno waxa ay walaalayaal maanta haddaan soo qaada caasimadda jamhuuriyadda muqdishoan joognaa muqdisho 3 sano ama aan dhahaba 4 sano 5 sano ka hor siday ahayd maanta siday tahay ma aha meesha ugu sarreysay muqdisho gaari karta inay gaartay laakiin muqdisho waxayna tusaysaa in haddii aan dabarka iska furno inaan waqti gaaban 4 sano iyo 3 sano iyo 5 sano waqti dheer ma aha waqti aad iyo aad u gaaban waay waqti gaaban inaan meel fog gaari karna ayay tilmaamtahay ma aha muqdisho keliya bax tag magaalooyin kale jowhar tag beledweyne tag maxaan ku ihahdaa dhuusamareeb tag gaalkacyo tag garoowe tag baydhabo tag kismaayo tag dhammaan magaalooyinka soomaalida ee la yaqaano dhan tag mid aanan maxaan ku ihahdaa kor u soo kicin ma jirto yaa sameeyey dadkeeda dowladdu doorka ugu weyn ee qaadato waa maxay fursad dadkaasi ay ku dhaqaaqaan ayaa maamulada iyo dowladda federaalka iyo dowladaha kale ay abuureen qudrada awoodda kartida dadka iskale hantida dadka iskale laakiin ayagoo sidaas ah ayaa hantidoodana ay isticmaali waayeen awooddoodana ay isticmaali waayeen oo cadow ka hortaagnay markii cadowgii
in ka mida laga leexiyeyna waa aragnay sida ay u tillaabsadeen. macadkani waxa uu ka mid yahay meelaha ama hay-adaha ama maxaan ku irahdaa yani qaab dhismeedyada loogu talagalay in ay dadka ka leexiyaan cadow. Soomaaliya Soomaali baa leh. Waa mahadsantiin. qof inaan ugu tiirsanaan iyo qulubtiisa maalinaan faraxsan yahay, maalinuu caraysan yahay, maalinuu murugaysan yahay, maalinuu isku qof ma aha, isku si uma dhaqmayo. laakiin ha caraysnaada ama ha faraxsanaadeen nidaamka u degan meesha ma ka leexan karo, ma dhaafi karo, waa waajahaysan yahay. siyaasaddii dalka ee ummadda hagaysay ee wax walba ka talinaysay ee mustaqbalka fog go'aankiisa gaaraysay ee midka maanta jooga gaaraysay ma nidaamsana, institutionna ma aha, ee waa qofof taagtaagan. sidee ugu qanci karaa 36 sano ee burburka ka dambeeyey aman marxalado kala duwan aan ku soo jirnay waxaan haysto waxaasay ahay dagaal oogayaalaan u bixinay kuwii qoryaha naasito oo abaabulay dagaalka la gelinay markii qoryaha la dhiga la yeerina hogaamiye kooxeedyad u bixinay kooxa kala gooni ah oo ninkaas daba socdaan noqonay. meeshii maan joogaynaa weli nimanaa maanta waxay ku adkaysanayaan bannaanka la taagay ku faanayaan inay weli hogaamiye kooxeed ahaadaan, siyaasad aan la garanayn, institution aan lahayn, qaabka go'aanka loo gaaro aan la garanayn, qaabka loo saadaaliyo aan la garanayn, cidda talada aan la garanayn, oo nin meel socdoo keligiis tooxda ah. dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay kaca baraaruga nidaam samaysta. siyaasadda waa waxaan haysto, dhaqaaluhu waa socotaa, way soo noolaatay alxamdulillah, waa sii socotaa. maxaan ku irahdaa laakiin meeshii ugu darneed tacliintaani meeshii la rabay ama ay gaari karta ma gaarayso, ganacsigu meeshii la rabay inuu gaaro ma gaarayo. maxaan ku irahdaa amni iskaba dhaafbo, adeeg kale iska dhaaf ma helayn haddaanan toosinin siyaasadda dalka, haddaanan aqoonin cidda dalka mas-uulka ka ah, hay-adda qof ma aha, hay-adda mas-uulka ka ah ee go'aanka u gaarayso ummadda iyo sida ay ugu gaarayso. cawada inta seexdo ma iska soo kacaan waxaan raba sheega masadaday leedahay oo soo rogrogo oo muddo soo celceliyo oo dad kale soo waraysto oo cilmi baaris soo sameeyo oo isu keeno oo waxa kadib yiraahdo wadadan aan marno. dad leh nidaam. marka siyaasaddu waa sidaas, wax kasta oo nolosha ku taxluuqan waa sidaas. waa inay nidaam tandiim waa inay leeyihiin loo raaco. marka macadka runtii mar kale waa hambalyaynayaa guddiga sare, waxaan hambalyaynayaa agaasimaha iyo intiiba macadka maalintii la aasaasay ilaa maanta juhd waa hawl isdaba socotay oo qofba meel iyo waqtiba uu soo qabtay. aad iyo aad ayaan u hambalyaynayaa. xarumaha waxbarashadana waa inaan kordhinnaa. awoodda dad uu yeelanayo midda ugu fiican waa midda dadka, qudrada dadka ay leeyihiin waaye awoodda ummada ay leedahay midda ugu xooga badan. beesa badan inay leedahay ma aha, guryo dhaadheer inay leedahay ma aha, madaafiic waaweyn inay haysata ma aha. maanka in ay ka dhisan tahay, wax ka qabto oo ay ka toosan tahay waaye waad wax taraysa. dalka Japan waxaa la yidhaha wax resources ama laha, khayraad dhulka hoostiisa ma laha,
buuraleyna waayo beero badan oo maxaa kala tax badan ma qabaan adduunyada meesha ka jira waa maxay waa dadka aan u jeesano xoog iyo xoolo iyo caqli wixii aan leenahay maanta waa laga yaabaa inuu amniga oo muhiimadda koowaad uu noo leeyahay oo aan budgetkeena miisaaniyaddeena inta ugu badan aan ku bixin waxaan ugu bixinaynaa waxay tahay amnigu wuxuu abuurayaa saaxadii ay waxa dhan ay ku beer haddii la tacbayo geeda howda dhexdooda inta timaado ma abuur ku ridaa inaad geed qaado jirrada bixiso sinto biyo xir iyo biyo cireen u yeesho kadib aad abuurtaa soo maaha amniga waa geed qaadkaas beerta la geed qaadaya la islaaxinaya waay kadib aan abuuraynaa tacliin dhaqaale maxaan ku iraahdaay sharaf iyo karaamo wax walba kadib aan beertaas ku abuurayna mar kale waan hambaliyaynayaa howl aad iyo aad u fiican waaye ha la sii wadaan leeyahay agaasimaha macadka wasiirka tacliinta bahda waxbarashada iyo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed waa ku mahadsan yihiin maanta inay halkaan nagu soo celiyeen muddo dheer ka bacdi 36 sano aan sheegay kadib maalintii burburka u dhacay halkaan aan joogay meeshaan macalinka halkaan fadhiyay marka laakiin mar daba waa imiday dhowr mar oo dib jaamacadda mugay meesha soo degtay kulli laakiin de imaatinka maanta macna kale gaar ah ayuu sii leeyahay hoolkaana maanta igu horeysa asagana waa barakaynaynaa in uu noqdo ma aha graduation bas maana wax badan oo kale iyo kulamo badan oo kale oo ummadda maslaxad u ah in ay halkaan ay mustaqbalka ay ka dhacaan haddii alla yiraa mar kale hambalyo waa idin mahad celinayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu